waxaan aad iyo aad idinka mahad celinayaa ka soo qaybgalka aad ka soo qayb gasheen xafladda sagootinta iyo soo dhaweynta isugu jirta ee aynu ku soo dhaweynayno kuna sii sagootiyeyno xildhibaan maxamed cismaan samatar xildhibaanku waxa uu inoo yimi bishii ina dhaaftay hadeer ee Ramadaan waqti isumeynaan helin aniga idinka wada raali gelinayay inaan goor hore isragnaabay ahayd haddaynu caawa wada joogno oo Ilaahay inagu sameey inagoo caafimaad qabna oo soo ciidnay oo soo cibaadeysanay inaynu la kulanno xildhibaankeenna waa xildhibaan qaran weeye waa xildhibaan qaran oo mas'uuliyadda Soomaaliland ee baarlamaanku ay saaran tahay markuu dibadda joogana xildhibaanada kale uu ka mas'uul yahay oo day sharaftoodii iyo haybadoodii buu sidaa billahi minash shaytaanir rajiim كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين sida wanaagsan ee aad maranaysaan golaha u soo camirteen xildhibaanka aad u soo ajiibteen markii la idin sheegay aad baan waxaan u salaamayaa saaxiibkay Maxamed Cismaan ayaan aad iyo aad u salaamayaa oo aad iyo aad u soo dhaweynayaa si sabootintan iyo soo dhaweyntan loo sameeyay inaabtigay Maxamed Cismaan runtii aniga waxa weeyaan waa dhan walba hooyadiina xabarbay tahay aabihiina abtu yahay dhan walba waan ka ahay marka aniga sharaf gaar ah tahay runtii maandhood baan u sheekaysanay waxaan ku yiri niyo anigu galbeed baan ka yimi waxaan ku dhashay dhulka yaa ka soo jeedaa laga soo doortay billahi minash shaytaanir rajiim bismillaahir rahmaanir rahiim assalaamu alaykum dhamaantiin ragayga sharafta leh ragayga aan ku faano reer Soomaaliland madaxdayada xildhibaanka Maxamed Cismaan Samatar oo caawa halkan soo dhaweyntiisa iyo sagootiskiisa labadii wada socda aynu u sameynayno alxamdulillaah thumma alxamdulillaah ilaaha weyn ayaa mahadda koowaad leh ee caawa isugu keenay halkan inagoo nabad qabna eedo ilaahay xilka kuga astiro kulay qof degan baa tahay oo hal cibaado ah ilaahay waxaan kaaga baryayaa inta kale inaad hormood u noqoto oo qof lagu daydo oo example oo dadka dariiqa wanaagsan dadka u jeexa السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمانتي موالين وذا سلامي عاوة هرتا شرف وين بيت هاي إن عن كسوق قريب قالوا سجوتسك محمد عثمان أو حلبان كسوق بحي حسب جاي قعد تقدر شرفت لي كسر دوين سنة حلبان كمحمد عثمان آديات بنوقف فرح سنة حدمانتين تهرت هذا البدن ولا يدي أو تمحوها ولا وضع هذي مركا ولا هذا اللي ما هذا ولا يدي مركا أنا واحد فرياون ده حلبان إنه حلبان قرني هاي مانتا أما إذا كصبح أما كل مياه كصبح إنه مانتا هي حلبان قرن إسلام مركانا وقرن كأمرتو تاني هاي واحد الدنيا إن اللي بدلوا دكانك iyo maxaan ku dhahdaa culture-ka labada kun ee sano lagu soo dhaqmay kii maxaan ku dhahaa xoolaha lagu dhaqanayay ee reebaadnimada ah ee qoloqolada iyo qabiilka taamaanta u baahnaa Soomaaliland maanta waxay maraysaa heerkii aqoonta iyo talada lagu shaqayn lahaa reerna laguma wadi karo beel laguma wadi karo xusb laguma wadi karo bahashan meel dheer baa laga soo saaray mana aha dawlad maanta bislaatay oo maxaan ku dhahdaa constitution nidaam adagoo ilaalin uu jiro oo meesha ma yaalo waa dadkeenan meesha jooga marka wax weeyaan isma hadinina meesha wali waa la nagu haystaaye hadhow toole marka la aqoonso waxaan doonto sameeysaane laakiin maanta war waxa idinka dhaxeeya ee meesha inoo yaala ayaa ka muhiimsan wax kasto inaga dhexdeeda aan isku hayno bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulillaahi rabbil caalamiin assalaamu alaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh dhamaantiin xildhibaanka iyo intiina isku soo kaliftay ee ku maamustay xafladan inta soo qaban qaabisay dhamaantiin waan idinka mahad celinayaa waqtiga aad u soo hurteen xildhibaan Maxamed Cismaan Maxamed Samatar inaan abtiga u ahay waa dadka ugu daada yar baarlamaanka uguna aqoonta badan waynu u duceynaynaa insha Allah ta'ala waxaan leenahay ilaahay xilka kugu asturo waa mas'uuliyad si fiican baan u aqaanaa waa nin dhalinyaro waa nin sala sheegay akhlaaqad leh waa nin maaragtay aqoon leh markaasi waa ragal maanta loo baahan yahay inay wadanka aynu uga baahanahay in wax u qabtaan waxuna qaban kara dawladda
dowladda waxaad naga gaadhsiisaa annaga haddaannu shicibkeen nahay dowladdu inay dadkayga ay maqasho oo waxan aan laga hadlayo ama mucaarad ha noqdo maxaafadna wixii ummadda u dana ee wanaagsan ee la farayo inay u dhagaysanaato wanaagguna taasi ku jira meelaha aad ka kala timaadeen masaafadda ay leedahay iyo howlaha aad soo dayacdeen ee aad aniga dartay iga timaadeen anigoo og oo ka warqaba runtii aad iyo aad baan idinka mahadnaqaya mahadnaq aan la koobi karin markan taa ka tago waxaan jecelahay xoogahay acknowledgement ah in aan maadaama aan waddankii hadda ka imi oo xoogahay mentality kale iyo fikir kale uu yaallo oo ku saabsan qurba joogta anigu waxaan ahay xildhibaan dabcan Somaliland sidoo kale communitygan UK iyo communitygan London West London ka tirsanaan jiray waxaan ogahay tacabka badan ee reer UK iyo communityga qurba joogta Somaliland ka soo jeeda ay Somaliland horena u galiyeen haddana galiyaan sida joogtada ahna ay u galiyaan wadanka dadka qurbuhu waa maal gashadaan ganacsiga ka samaystaan dadkooga wadankii joogay way caawiyaan qoys aan qof aan wax dirin waa yar yahay dadka halkan jooga waxaan filayaa xawaaladaha ilaa 3 bilyan oo dollar ayaa sanadkii Somaliland soo gaadho qurbaha ka soo gaadha waa shaqada adag ee aad qabanaysaan ee shiftiyada badan aad shaqaynaysaan iyo saacadaha badan ayaa nin walba intuu jeebkiisa wax ka soo jaro ayaa qaraabadiisa iyo ehelkiisa qofkii ugu dhawaayay wadanka Somaliland joogay u diraa dhaqaalaha Somaliland runtii qayb laxaad leh ayay muxuu qurba joogtu ku leedahay si gaar ah qurba joogta reer UK waxay ku leeyihiin dhaqaalaha Somaliland wax qayb laxaad leh ayay ku leeyihiin runtii arrinka waxaan fursadan uga faa'iideysanayaa in idinkana aan idinka mahadnaqo arrinkaas aad hore u wadeen reer Somaliland dadkii wadanka joogayna mar labaad xasuusiyo ahmiyadda ay leeyihiin communitygeena qurbaha joogta haddii aan taa ka gudbo waxaan maanta jecelahay inaan warbixin kooban idinka siiyo wadankii halka uu marayo Somaliland sidoo kale arrimo hadda taagan oo xasaasi ah oo doorashooyinka Somaliland mar walba doorashadu waa xasaasi oo muran iyo buuq badan tahay inaan hadda warbixin kooban doorashooyinka idinka siiyo iyo arrimo yar oo kale haddii aan arrinka guud ee Somaliland idinka warramo wadanku waa nabdoon yahay wax dhibaato ma jiraan nabad baa lagu nool yahay intii aan ka soo maalmaha aan soo bixi doono gubasho ayaa ka dhacday suuqii waaheen dhaqaale badan baa ku burburay nasiib wanaag si aad iyo aad u wanaagsan baa looga falceliyay dawladdu roolkeegii waa qaadatay oo ay ku mahadsan tahay xisbiyada mucaaradka bulshada rayidka ah iyo international community cid walba kaalin muuqata ayay ka qaadatay sidii suuqa gubtay hantidii ku burburtay dib loogu soo kaban lahaa maanta arrinkaa suuq meel aad iyo aad u wanaagsan buu maraya waxaanan masiibo kastoo dhacda haddii looga faa'iideysto waxba laga yaabaa in natiijo ka fiican natiijadii hore ay soo baxdo waxba laga yaabaa suuqii inaan hargeysa sanadaha soo socda marka timaadaan suuqii isku raranka ahaa ee baabuurku meel uu maro iyo meel ay dadku kala mareen la'aa oo laamiyadii furan yihiin oo la lugaynayo baabuurtii baarkinadii helayaan oo si casriya loo dhisay oo dab dambaan laga baqayn inaad u timaadaan kolka arrinkaas waa arrin wanaagsan oo inoo soo kordhay shaqada fiican ee suuqa laga qaban hadda ka socota wadankii de kama warliidinoo dad reer Somaliland oo odayaalo oo idinku jiraane Somaliland laba cadow bay leedahay weligeedna lahayd adduunka saddexaadna ay la wadaagtaa waa saboolnimo iyo aqoon darro waa laba cadow oo waaweyn oo runtii ka mas'uuliyad ahaan annaga iyo ciddii ka hadba xukuumadda joogta ee wadanka talaysa iyo annagoo xildhibaanadii inaan iska kaashanno oo labada cadow ka adkaano aan difiid garayno oo laga gudbo ay mar walba nala gudboon tahay Somaliland gabigeedaba waxa lagu maamulaa 400 oo milyan baa budgetka dawladda oo 100 milyan dawladaha hoose leeyihiin markii la soo qoriyo 300 oo milyan ayaa wadanka inta laga 40 milyan ee qof ku nool yihiin gabigiisaba lagu maamulaa hadda aanu xogaal banahayo budgetka wanagii December sanadkii hore
hawshiisa gallay ee muxuu ahaa January actually sanadkan wanagii ansixinay dee wad muxuu ahaa qof marka aad ceelka guntiisa ku jirtay aad aragto muxuu ahaa waxa koobnida iyo yarida waxa wadanka yaala iyo baahida dhabta ah ee jirta meel walba eegto caafimaadkii waxbarashadii biyihii meel walba eegto baahida dhabta ee jirta ee boqolaalka milyan u baahan iyo waxaan hayna markaad eegto waxa soo baxaysa runtii halka aan taaganahay iyo meesha aan rabno inaan gaadhno inay aad u kala fog yihiin una ay daruuri tahay in tallaabadii dhabta ahayd hore loo qaado lana dedejiyo tallaabadaas caafimaadku boqolaal milyan buu u baahan yahay waxaan u awoodnaa u kooban yahay hadda annagu ka baarlamaan ahaan baarlamaankii dhaweyd barjedkiina loo soo gudbiyey oo runtii aad ay ugaba muuqatay caafimaadku waxaan ugu kordhinay 200 oo adeego caafimaad oo dheeraad ah lacagtaa waxaan ka soo jarnay meelo kaloo iyaga laftoodu muhiim loo arkayay oo adeegyadii dhaqdhaqaaqii station iyo batrool meelo kaloo muhiim ah baan lacagtaa ka soo jarno waxaan nidhi caafimaadku waa muhiim shaqaalihii ciidamadii militariga ciidamadii guud ee wadanka oo dhan oo marka horeba dawladdu 20% u kordhisay mushaharka sanadkan 10% dheeraad ah ayaan ugu darnay maanta ciidankeenu mushaharkiisa ha iskaba koobnaaday haddana 30% ood qiyaasi karaysaan kordhinayo waa wax la taaban karo oo muuqata 3 magaalo ayaa lacag ilaa milyan iyo 200,000 ah aan u soo jarnay buurama oo kale dhakhtarka TB-do aad looga cawday ayaan ilaa 400,000 iyo wado baki tagaysay u soo jarnay oo aan miisaaniyaddii meelo kale jirtay tan ka soo qaadnay aan halkaa geynay magaalada Burco kaydkii biyaha oo aad looga cawday oo muxuu ahaa wakaaladda biyuhu kayd yari iyo kayd la'aan haysatay lacag ilaa 400,000 oo dollar ah ayaan u gelinay oo hore ugu jirin kaydka biyaha in Burco loogu dhiso magaalada Burco waxaan magaalada Ceerigaabo oo dhakhtar weyn dhakhtarro waa jiraan laakiin u baahnaa in la sii ballaadhiyo iyadana 400,000 oo dollar ayaan dhakhtarka Ceerigaabo dadka muxuu ahaa disability-ga leh naafada ah iyo dadka learning difficulties-ka waxa la yiraahdo ciyaalka learning difficulties-ka leh iskuulo yaryar oo wadanka ka jira oo aan maalgashiyo badan haysan doorkan meel walba waxaan ugu darnay markii koobaad ma oran kara laakiin markii koobaad korodh intaa leeg ay dadka disability-ga qaba naafada ah muxuu ahaa iyo dadka ciyaalada yaryar ee learning difficulties-ka qaba doorkan waxaan markii koobaad samaynay kordhin muxuu ahaa iyo soo kordhin cusub iskuulo cusub wana wal barjad haysanoo Hargeysa iyo magaalooyinka kale leh ayaan lacag ugu darnay lacagahaas meel kale ka meeymana 300 milyan ee marka horeba la soo qorsheeyay ayaa aan 2 toddobaad wali waqtigu nagu yaraa annaga laftaydu khilaaf nagu dhacay oo aan jeclayna waqti ka badan helno xeer number 14 xeerkii doorashooyinka annaga laftayda dhexdeeda khilaaf iyo murankeena waqti badan naga lumiyay ayaa haddana 2 toddobaad wax ka yar oo deadline-kii ka dhinnaa barjadka aan intaas hawshaa ku qabannay hawshaas inta badan hawl mediyaha soo gelaysay ma ahayno dadku public iyo bulshadu Soomaaliland dadka Hargeysa joogaan la socon qurbuhuna war kama hayn inta badan waxa lagu jiraa waqti social media aad u awood badan tahay waxa social media laga yiraahdo ay duulaan oo dadkuna intaas sun rumaystaan waxa nagu dhex jira dabcan marka doorasho la galo dad badan oo wanaagsan waa soo baxayaan mid iyo laba xildhibaan oo laga yaabo inay dhaliilo leeyihiin de waa imanayaan golihii hadda waxa jiray xildhibaano maalintii aan barjedka baaskareynay shir markii hawshu dhamaatay aan ansixinay shir jiraayid qabtay meesha qaar markii muxaadarayntu socotayna qaar ka dhex qayliyay baa jiray oo bixiyay sawir ka duwan sawirkii muxuu dhabtahay meesha yaalay sawirka dhabtay meesha yaalay wuxuu ahaa 2 toddobaad oo aanan u kala kicin oo gudiyadu shaqaynayeen oo shaqadu nagu gaadhaysay ilaa 12 habeenimo subaxintan bilowno
aan soo qadayno soo noqonin gelinka dambena habeenkii haddana hoteelladii guryo gaara shirar ku gelaynay shaqadaas aan u dedejinno oo lacagahaas barjadka meelaha qaar aan isleenahay way ka soo go'ayaan aan ka soo goyno negotiation socday oo wasiirkaan u yeedhaynay wasaaraddii oo noqonayay inay ka soo tashanayeen nagu soo noqonayeen oo agencies-ki kala duwanaayay wax laga goynayay kuwii loo kordhinayay aan u yeedhaynay oo la tashi samaynay oo khubaro u yeedhaynay shaqo aad iyo aad u badan baan qabannay oo overtime ahayd oo ilaa 12 habeenay gaadhaysay waxaa jiray xildhibaano aan hawshaasoo dhanba ka warhayn oo intii hawshaasi socotay diyaarsanayay warqad dheer oo dhaliila diyaarsanayay iyo shir jirayd oo ay ku qabtaan baarlamaanka hortiisa de dhibtaasa way dhacaysaa oo runta marka la sheegana baarlamaanadii horeba way jirtay meel walba adduunka way ka dhacdaa wakhtigan waxa u dheeraadahun midhiyihii oo meel walba si u dhaqsa badan u gaadhaya arrimaha yaryar ee noocaas annagu dhexdayada waxaan ka samaysan doonnaa haddaba aan gacanta ku haynaa code of conduct iyo anshax qabanaya xildhibaanka oo aanu ka gudbi karin weli hadda qorshihii waxaan wadnaa qoraalkii iyo qorshihiisii baan wadnaa waxaan filayaa kalfadhigan aan jeclayn inaan samayno anigan hadda kalfadhiga hadduu bilaabmay kalfadhigan haddaan ka gaadhsin weyno ugu dambayn kalfadhiga dambe kan kalfadhiga ka dambeeya code of conduct dhammaystiran oo xildhibaanada tiyoon xuquuqdoodii lagu gafayn iyo shaqadii dhabtaha ee qaranka wayaan haddana dabar macquul ah u samaynaya waa keeni doonnaa hadduu ilaahay yidhaahdo biyaha haddaba xaaladda guud ee waddankan idinka warramaya biyuhu waa baahi dhab ah oo baahi aasaasi ah oo runtii in bini aadanka laga kafeeyo wax walba ka horraysa haddii qofku harraadan yahay miiha jooga magaalaha jooga haddii aanu biyo haysan waa dhibban yahay waa baahi aasaasi ah oo qof walba bini aadan ah in laga kafeeyo ay daruuri tahay idinka laftiinnu de intiina noo timaadaana waabad ka warqabtaan oo de waddankii waa la wada yimaadaa mar kasta xaaladda biyola'iyadu halkay taagan tahay inaad ogtihiin dadka miyigu waxa ay ku tiirsan yihiin roobkii sidii awyaasheen nagaga tegeen ayaa weli ay roobka ugu tiirsan yihiin haddii roobkaasi wakhtigii uu di'i lahaa ka gadaal maro dhowr toddobaad bil waxaa timaada xaalad abaar ah xaalad biyodhaamis oo tii hadda aan ku jirnay la mid ah waxaad mooddaa frequensigii soo noqnoqodku taariikhiyan waxaa laga yaabaa 10kii sannaba mar inay waxaani dhici jireen iminka global warmingkaas iyo climate changeka adduunka ka dhacay darteed waxaad mooddaa haddii 2 sanno oo isku xiga dadku ay biyo roob helaan sannadka saddexaadba inay abaari ay jirto oo booyad iyo biyodhaamis iyo lagu jiro hadda iminka 2 sanno isu dhoweyd waaba wakhtigaan annagoo allaha ku jirnayna biyan dhaaminaynay annagoo musharaxiina dadkii deegaanadii biyaha geynaynay iminka oo sanadkii koobaadaan fadhiisannayna oo idinkan ogo hawsha biyodhaamisku halka ay inkastoo sanadkan allaha ku jirnay sanadkani dhaamo kolkaa runtii arrinkaasi waa arrin annagana na dhiba maadaama naa xildhibaano cusub oo jecel meelaha ugu muhiimsan in wax ka qabanno hadda nasiib wanaag dowladda hadda jirta oo markii koobaad waxay labalaabtay oo meesha keliya labalaabtay barjadkii wasaaradda biyaha waa la labalaabay ceelal cusub oo biyo ah ayaa waddankao dhan haddana ka socda qorshaysanna sannadkan in laga fuliyo deegaanada hawdka iyo oogada oo runtii aan ceelal laga gaadhin waxa qorshaysan in dhaamam iyo ballayo waaweyn laga sameeyo inta awooddeennu tahay waxaa hadda qorshaysan in anigu waxaan ku jiraa shakhsiyan guddida khayraadkaiyo tamarta guddi la yidhaahdo biyuhuna soo hoos galaan si aad u dhow baan ula socdaa howlaha biyaha hadda waxaa qorshaysan in muxuu ahaa qolyihii international community-ga la odhan jiray ee meelaha aad nooga caawin jiray waxyaabaha qaar in aad focuska sanadkan iyo sannadaha soo socda loo saaro biyaha oo biyuhu noqdaan priority aad iyo aad u weyn oo muxuu ahaa waddanka oo dhan miyiga lagu hormariyo magaalooyinkana lagu hormariyo waxaa loo baahan yahay lacag 100 milyan hadda waxaa jira assessment la sameeyey dhowr sanno horteed oo ilaa lacag ugu yaraan $100 milyan oo baahiyo aasaasi oo biyaha la qorsheeyey
qoladii international community-ga World Bank uu kow ka yahayna laguba marti qaaday oo ay ahayd in donor conference weyn lagu qabto muxuu Hargeysa lagu qabto hordhiciisa aakhirkana Dubai ama Nairobi maadaama meelaha qolada international community-ga ay aad ugu base gareysay u degan yihiin lagu qabto nasiib xumo markii hawshaasi bilaabmaysay uun COVID-19kii baa bilaabmay wax walba way istaageen hadda ayay muuqataa in adduunkana ka soo kabanayo restrictionski iyo waxyaabihiina la yar wada qaaday hadda moodaa inay taagan tahay waqtigii saxda ahaa in arrinkaa la sii anba qaado annagu ka guddi ahaan iyo ka baarlamaan ahaan annagoo la kaashanayna hay-adaha dowladeed ay khusaysay wasaaradda biyuhu ay kow ka tahay waxaan ku dadaali doonnaa inaan qabanno donor conference weyn markii koobaad Somaliland oo lagu soo casumayo dhammaan deeq-bixiyaasha adduunka lagagana qorshe macquul ah oo laga shaqeeyey oo daraasad lacag badanna runtii ku baxdo $2 milyan ahi aan hor dhigi doonno kuna dadaali doonno ka codsan doonno lacag ugu yaraan $100 milyan inay sanduuqa ku soo shubaan qaabka loo maamulayana qaab corruption iyo musuqmaasuq iyo faragelin iyo dawlad wax ka qaada ka baxsan si wixii wax macquul ah oo dadku wax ku soo darsan karaan beesha caalamku ay u noqoto taasan hadda qorsheynaynaa إن شاء الله تعالى أنا وكل ليسن دونا يدينكم إنه قصة دعية هدول هاي رهضة مجالة هرجيسة ومجالة وعاصمة دي جمهورية الصومال وحهذا كنا ضد $1 مليون صاروا ضافية ما أنت وكالة بيها مجالة هرجيسة كتيرتا وحي أودا إن أي 9 متر كيوبيك أو بيئة ay magaalada ay siiso 9 milyan oo litir weeyaan maalintii qiimayn aan sameynay waxa noo soo baxday inaanay biyaha oo kala biyuhu ay magaalada maalintii siisaa aanay xitaa 20% aanay ka feynayn magaalada inteeda kala booyado iyo haraad iyo inta yaroo la sii kala qaybsado ayay ku biyo cabtaa magaalada 9,000 متر كيوبيك مالنتي هالشا waxay u baahan tahay ugu yaraan 60,000 متر كيوبيك oo biyo ah si biyo ku filan ay hesho wad qiyaasi karaysaan 9,000 iyo 60,000 waxa u dhaxeeya farqa u dhaxeeya waa in la shangoor 6 goor laabo weeyaan 6 times waxa muxuu ahaa maanta inoo yimaada 6 goor wax ka badan ayaa loo baahan yahay ceelasha biyaha noo keena waa ognahay oo waxay ku yaalaan waqooyiga geed deebley ku yaalaan وسجال عيل iyo 2 reserve عيل walba inta biyo ay capacity-giisu yahay waa ognahay hadda maximum capacity-gi in la reserve-kiiba laga shaqeeyo in laga shaqeeyo maximum capacity-gi ceelasha ay noo qodanay ay ku shaqeeyaan waliba table-kooguna biyaha caadiyan ceelku waa markii wax ka dhacaanba waa markuu roobku dayno recharge-ku hadalkii soo gaadho ceelashii hoos bay u sii wada socdaan kolka waxa soo baxaysa in aan xitaa sustainable ahayn ceelashaasi oo magaaladu haddii aan qorshe labaad loo sameyn qorshe ka duwan qorshahan hadda jira 9,000 inay wax ka dhacaan mooyaane inay waxba ku soo kordhayn deegaanka waqooyiga biyuhu ka yimaadaana biyuhu waa aad ay ugu yaraadeen oo ceelashaas ay biyihii ay badankoogii qaateen waxa sidoo kale qaaliyoonay dadkoogayn caadiyan systemka magaaladu ilaa biyuhu dhowr iyo 20 halka bamka halka kaydadku yaalaan ilaa dhowr iyo 20 kilomitir bay u jirtaa magaalada dhowr iyo 20 kilomitir bayba la dhigaa hadda imika hal bayb oo qolada European Union ku maalgeliyeen oo imika u dhamaaday dhowr iyo 20 milyan baa sanfilay dhowr iyo 20 milyan baa ku baxay lacagtaas procurement caadi martay shirkadihii fulinayay shirkado inta badan ajaanib ay ahaayeen wax badan oo musuqmaasuqolka la sheegi karo may jirin lacagtaas meesha way gashay dhulku waa dhul buuralayo in buura la dumiyo oo baybka la dhigo baybka laftiisu qaali hadda waxyaabaha noo soo baxay baybka la dhigayo ee loo baahan yahay inuu weligiiba magaalada waraabiyo baybka cusub ee la dhigay capacity-giisu imika wuxuu gaadhsiinayaa ugu yaraan 30,000 intaan u baahnayn halfkeed ayuu gaadhsiinayaa waa dhowr iyo 20 milyan baa ku baxay baybka si 60,000 loo gaadho bayb labaad oo dhowr iyo 20 milyan oo meel aan cid lacag u hayn ayaa loo baahanayaa oo waliba biyihiina aan meel kolka qorshaha saxdii muxuu yahay biyaha Hargeysa qorshaha saxdii wuxuu yahay in dam assessment-ka waa la sameeyay feasibility study waa la sameeyay qorshe waa la sameeyay imika lacagtii
ayaa dhiman dhaam weyn in halka ceelashu yihiin laga sameeyo oo marka roob nagu filan runtii noo da'aa marka roobabku noo da'aan dhaam weyn oo si fiican loo manage gareeyey oo biyihii qabta oo marka laga soo turo dadka si fiican loo filtar gareeyo oo biyihii magaalada keena kaasaa nagu filan kaasi wuxuu u baahan yahay lacag qiyaas ahaan aan ka yarayn 30 ilaa 50 milyan ayuu u baahan yahay waa kan doonaynaan isleenahay donor conferenceska u qabto oo bal maalgashadayaasha adduunka u bandhiga inay wax idin kala qaban karaan annaguna dabcan barjadada cusub markay wax soo dhawaadaan inaan wax badan weecino xaggaas biyaha magaalada maadaama caasimad tahay oo dadkii Soomaaliland 4 meelood oo meeli ay ku nool yihiin magaaladii caasimadda ahayd waxa dhacda mararka qaarkood dhaliil runtii dhaliishu waa sax oo dawladda in la toosiyo aniga laftayduna waa jecelahay ciddii si wax dhisaysa u toosinaysana waa soo dhaweeyaa laakiin dhaliishu waxay ku fiican tahay markaad xogtii urursato ee aad arkayso waxa qaldan inaad farta ku fiiqdo dhaliishu kuma fiicna adigoon waxba ogeyn inaad iska hadasho marar badan waxa dhaca dad wax dhaliilaya oo biyaha tusaale ahaan dhaliilaya oo aan xogtii badankii aan waxba ka ogeynba maxaa biyo magaalada yimaada halkii ka yimaadaan wakaalada biyo lacagta soo gasha waa intee imse guriba Hargeysa biyuhu ku jiraan lacagta laga qaadaa waa intee imse shaqaale ay magaaladii wakaaladii biyo Hargeysa ka shaqeeyay mushahar maxay bixisaa dabcan wakaalada biyo dhaliil waa leedahay dhaliil badan oo aanan hadda caawa halkan aan rabin inaan ka sheego laakiin biyo la'aanta magaalada xaqiiqda marka loo laabto waa lacag yari iyo kabaasi aan muxuu investment la'aan aanay wakaalada biyo kaligeed aanay qaadi karin dabcan improvement la sameyn karo oo inta yar hadda jirta waa jiraan laakiin magaalada biyihii biyo wada cabto hadda qaabkan wakaalada biyuhu lacagta u hesho iyo muxuu ahaa budgetkan hadda u yaala marna ka fayn maayo budget ka baxsan ama beesha caalamka keenta ama budgetka Soomaaliland ka yimaada ay u baahan tahay magaaladu kolka biyaha waa ku yar dheeraaday oo runtii dawaanan jecelo waa baahi aad iyo aad asaasi ah imika waxaan u bixi doonaa gobolada bari baan u bixi doonaa Berbere iyo Burco iyo Ceerigaabo iyo Laascaanood buu tagi doonaa wakaaladahayga biyahana waa la kulmi doonaa deegaanada miyiga ah u dhaxeeya intaan ka gaadhno waa u kuurgali doonaa xogta ka soo baxdana baarlamaanka oo kula soo noqon doonaa report fiican baan ka samayn doonaa hadda horta imika bil iyo dheer 2 bilood horteed galbeed baan u baxnay oo Gibley baan marnay oo jaalan tagnay Boorama ku dambeynay waxaana siib wanaaga magaalada Boorama inkastoo iyada lafteedu maalgashi u baahan tahay in ay haddana leedahay intaan arkaynay maamulka wakaaladeed ee ugu fiican uguna effectivesan ee hadda inta Soomaaliland daraasadda ku sameeynay niman mutacallimiin ah ayaa gacanta ku haya nidaam ka gedisan nidaamada waddankeentiisa kale leeyahay bay ku shaqeeyaan oo public private partnership bay ku shaqeeyaan profitka ka soo baxa uu cayiman yahay sa loo qaato waa la yaqaanaa cashuurtii dawladda u shuban waa la yaqaanaa waxayna siiyeen detail aad iyo aad maaragtay annagana noogu muhiim ahaa ka guddi khayraad ahaan baarlamaanka waddankana muhiim ugu ahaa oo runtii hadda inaan si yar hordhacuun baan diidayaaye de marka aan hawshaa dhammayno aan jecel lahay in meelo badani systemskii nidaamkoo la isaga daydaa meesha nidaam fiican waxay ku fiicantahay waa laga qaataa kolka magaalada Boorama oo kale nidaam aad u fiican inkastoo iyada lafteedu baahiye iyo caqabado jireen daamamkan aan ka hadlaynay ceelashooduna iyaga laftooda aanay sustainable ahayn meel Soomaaliland magaalana ceelasha u qodanay ugu yaraanta galbeedkan soo marnaan soo aragnay sustainable maaha haddana saasay tahay magaalada Boorama magaalada kaliya 18,000 oo guri waxaana biyo siisaa more than 90% magaalada biyo maalin kasta ah oo nadiif ah siisaa kolka runtii de hawlaha noocaas ah biyaha waddanka jira insha Allah tacaala annagu ka baarlamaan ahaan iyo aniga ka shakhs Maxamed Xildhibaan Maxamed Cismaan ahaan iyo guddigan ku jiraaba si dhab ah ayaan ugu dadaali doonaa in ay biyuhu noqdaan ahmiyad qaranku leeyahay oo waqtiga xilkaygu marka uu dhamaado halka maanta ay biyuhu joogaan meel aad iyo aad uga fiican oo shacabkiina soo doortayna ka mahadiyaan qaranka Soomaaliland ka mahadiyeen gaarsiinan insha Allah tacaala ku dadaali doonaa kulli waqtiga iska gaaban waxaan jeclaa arrimaha doorashada
oo arrimo mar walba xasaasi ah oo buuqeeda leh oo inaan warbixin kooban idinka siiyo dabcan dimuqrasigu sad ogtihiin waa iska muran badan tahay dimuqrasiga lafteeda ayaaba muran iyo in la dooda ah oona iska dabciga dimuqraadiyadda in dadkii muxuu ahaa xisbiyadii iyo dowladdii mucaaridkii xisbiyadii bulshada intaa dood joogta ahi socoto laysdhaliilo innaga waxay noo dheer xoogahay mararka qaarkood baa siyaasiyiinteenna iyo in ka mida bulshadeenna hadalkula taraaraa oo ay ka gaadhaa meel dadka qaar u turjuman karaanba in xadkii xoogaha inay ka yar baxday mararka qaar dadku ay uruuraan ay isdhaahdaan talow meeshii ma dhibaato iyo in laysku dhaco dhibaatooyinkii laga soo gudbay lagu noqdo ayaa soo socota mararka qaarkood dadku say u hadlaan laakiin waa arrin Soomaaliland leedahay waxba idinka waxaan leeyahay dhag ha u dhigina waxba dhici maayaan wadanku nabad buu ahaanayaa dadka hadlaya oo wada stakeholderskii wadanka nin walba investment wuxuu ku leeyahay $100,000 iyo qaarba malaayiin kula dadka hadlaya qayliyaya kolka cid nabadda iyo nidaamka aan dhisannay ka hor imanaysaa insha Allah ta'ala jiri mayso hadda doorashadii waxaa inagu soo foolle 3 doorasho runtii dadku labun bay ka hadlaan 3 doorasho waqtigoodii hadda taagan yahay doorashada golaha guurtida waxa sharcigu yahay in doorashada wakiilada waana doorasho dastuuri ah waa in ay sanad gudihii ku dhacdo doorashada golaha wakiilada wadogtihiin golihii guurtidu waa sidii 1993 buurama loogu soo doortay sidii bay muxuu ahaa golihii guurtidu u fadhiyaan qofkii ka dhintana waa laga dhaxlaa oo golaha kaliya la kala dhaxlo xeerkiisi ma samaysna xeerkiisin xukuumaddii iyo annagii in loo sameeyo xeerkii lagu soo dooran lahaa ama doorasho toos ha noqdo ama san anigu jecelahay xulid ha noqdo dad la soo xulay qaab xulidaha ku yimaada in xeerkiisi la sameeyo ayaa muhiim ah doorashadaas oo muuqata inay dib u dhacayso sanadkii waxa ka dhiman gudaheed inay ku dhacdo bishan muxuu ahaa May dabayaaqadeeda ayaa deadline-keegu uu yahay inaanay doorasho guurti dhacayna way muuqataayo ay lagama fursadaan tahay inay dib u dhacdo taasi dib bay nooga dhacday in xeerkeegina ma samaysno insha Allah ku dadaali doonaa xukuumaddana oo ka codsan doonaa annaga laftaydu ka galo wakiil ahaan oo ku dadaali doonaa ugu yaraan bilowno in xeerkeedii la sameeyo doodeedii bilaabanta sidii golahan bedela u iman lahaa laba doorasho kale oo midina dastuuri tahay midina dimuqraadiyadda ay u tahay fure ayaa hadda iyaga laftoodu taagan waqti xaadirkan doorashadii madaxweynaha oo dastuuri ah 5 sanaba in mar la doorto ay tahay November sanadkan ay ku waqtigeedii uu taagan yahay in uradii la furo oo dimuqraadiyaddii dhiig cusub lagu shubo oo fursad loo siiyo maadaama dastuurkeennu xayndaabayo oo uu oodayo uradii sababo jiray awgeed oo taariikhiyo laga bartay dastuurkeenna markii la qorayay 3 xisbi oo kaliya inay doorashooyin ka qayb galaan sharciyo dastuur ay noo noqotay sidoo kale waxaan sharci ka dhigannay in ururada 10 sanaba mar la furo oo aanay ka gadaal marin 10 sano si space loo siiyo dadkii soo baxay iyo dadkii aan fursadda u helinay 3 xisbi ka mid noqdaan iyo dadkii 3 xisbiba aan ku fikirka ahayn ee wax ka duwan oo laga yaabo inuu ka fiican yahay qabay in fursad la siiyo si wadanku u helo hogaamin cusub oo laga yaabo kuwa hadda jira wixii ay qabteen wax ka badan ku sii dara labada doorasho waa taagan yihiin labaduba waa sharci xukuumaddu waxay tidhaahdaa labadaba waqtigoodii bay ku qabsoomayaan xisbiyada mucaaridku mar walba waxay emphasis ka saaraan oo nagu garaabaya maadaama dan xisbi iyo dan shakhsi uga muuqato madaxtooyadu inay waqtigeeda ku dhacdo ta kale waxba nagama gelin horta taasi waqtigeedii ha ku dhacday yidhaahdaan xaqiiqdu waxa weeyaan aniga san dareensanahay dareenkayga iyo opinionkaygu labadaa doorasho ma wada hal mar waqtigan ay mid walba ku astaysan tahay ma in labaduba wada dhacaan suurtagal maaha ofalaab la iska arka cid walba og tahay baa jira tii ururadu hadday imika bilaabanto campaign-kayga hadda bilowdo
dee tu kaloo madaxtooyo ma dhex socon karayso haddii tii madaxtooyadu bilaabanto la yidhaahdo taasaa la qabanayaana tii urura jiri mayso kolkaa dee hadda go'aan aad iyo aad u culus oo ayaan hore mas-uuliyaddeeda ka fikirkeega iyo xigmaddeeda u baahan iyo tashigeeda ayaa na hor yaallo qarankao dhan inuu ka tashado xisbiyada mucaaradka xukuumadda annaga labada gole ee baarlamaanka in go'aan siyaasadeed iyo rowdmaab iyo waddo cusub oo doorashooyinkan lagu qabto oo wadar ogol ah oo dadka badankiisu dadka wada ogol yihiin haddii la heli waayo wadar ogol dhammaan wada ogol la waayena ugu yaraan dadka badankiisu majoritiga dadku ogol yihiin xaqna ah oo cadaali ah qodobka muhiimka waxa weeyaan nidaam cadaali ah sidoo kalena waddanka u fiican qaabka loo kala horraysiinayaa waa inay cadaali noqotaa oo aanay cidna cadaalad darre ku samayn sidoo kalena danta qaranku ay ku jirtaa insha allahu tacaala markaan hadda noqonno anigu waxbaan ka aaminsanahay say u kala horraynayaan laakiin daruuri maaha inaan caawa idhaahdo sababtoo ay u baahan tahay in laysu tanaasulo oo laga wada hadlo wax badan laysla bisleeyo waxaan aaminsanahay caawa halkan ka sheegi maayo laakiin waxaan ku rajo weynahay aan hubaana inay si fiican ku dhammaan doonto sababtoo ah dadka reer Somaliland waxay qayliyaanba waxay murmaanba waxay iliidka iyo dadka taliya Somaliland aakhirka marka ay gaadho go'aanada masiiriga ah meel laga midaysan yahay bay soo dhigaan cidun baana aakhirka candhuufteeda dib u liqdo oo ambitionkii shakhsiga ahaa ee ku jiray ka tanaasusho taasina saasun bay hadda ku dhammaan doontaa idinku waxba ka ururina waxaan uun ku soo gabagabeynayaa runtii waddankeennu waddan hadda waxaan ahayn 30 sano imika dee nidaamkiisa iyo dowladnimadiisa dhisayay weli adduunkii kamaynaan helin aqoonsi rasmi ah dabcan meelo badan iyo xitaa wadamada qaar waxay noola dhaqmaan sidii waddan jira laakiin haddana waxaan weli sugaynaa in aynu noqonno xubin si rasmi ah uga mida United Nationskii uga mid ah oo kursigeeda iyo calankeeda iyo aaraadeeda qaramadii midoobay kule iyo gobolka qaaradda Afrikan ka mid ahayn iyo regionkii geeska Afrikaan ka mid ahayn waxaanuun arrinkaa soo qaadanayaa maanta adduunka dabcan dowladihii hore iyo tan hadda jirtaaba dadaal waa geliyeen in ay beesha caalamka iyo waddamadii jaarka la hadlaan oo ay arrimaha aqoonsiga kala hadlaan dowladba meel ha soo gaadhsiiso waxaa arrinkan sidoo kale muhiim u ahaa wadahadal dhab ah oo lala galo dowladda aan jaarka nahay ee Soomaaliya hadda 5 sannadood ee ugu dambeysay wax allaaliyo wax arrinka ka qabsoomay ma jiraan shir awrkacsi ahaa oo magaalada Djibouti lagu qabto dan siyaasadeed oo aan daacad laga ahayn dhanka Soomaaliya aan daacad ka ahayn oo mar dhacay baa jiray Djibouti ka dhacay intii kale cagajiid iyo waxa lagu jiray muxuu ahaa nimankaasi waa inaga mid yihiin maxaan la hadlaynaa waa 5 sannadood ee ugu dambeeyay 5 sannadood waxa dhacay in xoolihii Somaliland ka dhoofi jiray la xayiro oo dawladdii Saudi Arabia dacwado iyo muxuu ahaa ashkato iyo territorial integrity iyaga Soomaaliyeed daawac ku tihiin loo gudbiyo dhibaato weyn baa muxuu dadkii xoolaha ka ganacsanayay waqti soo gaadho xoolaha qaar ay 30% miyal lamse 20% xoolihii markii muddo lagu hayay dekada Berbere dirqi laga furfuray iyagoo ku darxumooday kuleelkii Berbere ay markabkii doonihii ku sii dhinteen xoolahaasi dhaqaale burbur xun bay dawladda Soomaaliya waqtigaas Somaliland u geysatay ilaa hadda waxa taagan deeqihii beesha caalamka nooga iman jiray oo dawladda Soomaaliya ay xanibtay oo ay shuruud ku xidhay wasaaradda qorsheynta Soomaaliya la soo maro inaguna si saxda ah aan qaadano aan nidhi muxuu ahaa cadka xaaraanta cuni mayne aan ka lacagtaas hanaga maqnaato waxaan arrinkaa u soo qaadanayaa dabcan marka waxyaabaha noocaas dhacaan waxa imanaysa cadaawad baa imanaysa anu jiray awalba cadaawad laga yaabo inay dadkeennu dareemaan in Soomaaliya dabcan dawladda Soomaaliya ee hadda jirta Somaliland waa la dagaalantay laakiin midun baan jecelahay shacabka
caadiga ah ee nolol maalmoodkooga caadiga ah hootee Soomaaliya dad aan colnahay maaha waa dad muslim ah waa dad Soomaaliyeed waa dad aan jecel lahay in maamul ka fiican kan hadda jooga ay helaan iyo dawlad ka fiican oo iyagana xutarta dawlad iyagana shaqo fiican u qabata oo dhibaatada haysata ka saarta innagana ina soo hor fadhiisata oo wada hadal dhab ah ogol oo muxuu ahaa labadii dhinac iyo labadii dal ku wada hadlaan oo arrimaha masiiriga ah ee kala go'a iyo nidaamka lagu wada noolaanayo si dhab ah looga wada hadlo kolka waxaan arrinkan uga faa'iideysanayaa inaan baaq u diro xildhibaanada hadda cusub ee Soomaaliya jooga in ay iyaguna mas'uuliyadda qaataan oo ay muxuu ahaa diyaar u noqdaan wada hadal dhab ah oo Soomaaliland la galo oo walaaltinimo lagu abuuro laba shacab oo laba wadan oo jaara ku nool waxyaabo badan iska kaashada oo haddii niyad wanaaggan anagu qabno ay dhab noqoto ay la yimaadaan miiskii soo fadhiistaan oo ay aqbalaan Soomaaliland ayba dhici kartaba in nidaam European Union ka ah geeska Afrika iyo Soomaalida uu ka dhaco dadku isdhex socdaan Soomaalidu kala ganacsato tiyo laba wadan la kala yaho laba calan la kala yaho laba wadan iyo laba dal la kala yaho United Nations iyo muxuu ahaa Afrika iyo IGAD kuraasa lagu kala fadhiyo in wax badan la iska kaashada suurtagal ah oo anagu jecel lahay kolka waxaan arrinkan u soo galay inaan baaq u diro nimanka cusub ee hadda xamar xildhibaanada cusub labada aqal ee loo doortay inay ka weecdaan meeshii ay marar badan oo hore mari jireen oo ay doortaan hadda doorashadoodii baa aan filaya in 15 bishan ay dhacayso ay doortaan madaxweyne mas'uul ah oo iyagana wax u tara diyaarna u ah inuu Soomaaliland soo hor fadhiisto oo arrinkaas inta 30 sano jiitamay si macquul ah oo labada dhinacba u cuntanta ku dhamaado waxaan hadalka ku soo gabagabeynayaa runtii de mahadnaq mar labaad aan idin mahadnaqayo soo dhaweynta aad soo dhaweyseen de idinkana kulley muxuu hadadan soo dhaweji naqaanay u badan yihiin ragguye wadankiina markaad noo timaadaan saad ii soo dhaweyseen baan anigu shakhsiyan qof idinku soo dhaweyn doonaa aad iyo aad bad u mahadsantihiin